السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ داود يا لسه نقد ونقسم كل انتك لو حيسنا ما شاء الله دمانتين وأي عفمات قبل سير رجينا يعني كانوا أني عفمات قبا كل بأي حسين أنا وأني حسي ماما واسكة مشغول وجهي وحسين إن بدنا أملينا يا أنا جالس يقول حسنا يعني يقول حسي جمع مبارك جمع حلوة يعني ليه هاي ملول بوكتشوك عالمك ليدي سانشة مال سولو هذا رأي دمراو دمانتينا سولو هذا كربية تين الله يدين دي الله يدين هاي بركة ملول بوجوكتين بركة قير إن شاء الله مركز سولو هذا حاجان هركب يقول بريهان توي بيسين هركب يقول عايسو مرول بواجع لنا فيديو إني كل مقالة حسنا وجعل هاي مرول بنا إني هقبتره ما أنت وري إنك دالي ما أنت محاني وذا مقال أن عادي أنا يعني وذا ما أنت فيديو أن عادي أنا كل كعسنا إني وذا أبدأ واحد دوني أنا نيلش القراءة مركا إلى وذاكتان إلى وذاكتان كمتي قروح بدن أتكسر في العليسان يعني سي أو أركتين شو كان سي لايف يا ما أنت اللي وذا شو كان سي أو هذا وحاكو له أو لايف أني وذا dhanka baadiyaha maanta tagayna halkaas ayaan tagaynaa maadaama ay maanta jimcada baadiyaha ayaan ka tagaynaa shukaansigiisa inkastoo baadiyaha tahay meesha oo dhaqankeena waxyaabo fara badan yacni oo raadraac maanta aan ka raadraaci karno dhaqankeena waa dhanka baadiyaha soo maahan dhaqanka Soomaalida meesha laga raadraaci karo sida gabdhaha wiilasha isku shukaansadaan oo kale marka dhaqanka Soomaaliya markii la joogo magaalada oo kale Soomaali magaalo imi eelada Soomahan dhanka miigi maanta shukaansiga haasawiisa arba maanta si live in aad maqashin wiil reer baadiye ah barbaar ah gabar shukaansanaya oo reer mi ah aad arki doontaa sidoo ula hadlay yacni waa laga helaa rag oo dhan ma aha laakiin wax walba marka dhigeysto wax baa kaaga ifbaxayo waxa rabaa maanta in wax iniga ifbaxo badan dhaqan xumada magaalada ku jirto oo dhalinyarada is dhahay romantiga iyo fiidiyoyadan ama waxaan ayaa iska caalamiga ah oo social media ay ka arkeen oo kale ay ku dhaqmaan shukaansiga markii la dhahay shukaansiga waxa ku dhacay burbur weyn ku dhacay xiriirka wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed markay haasaawayaan is dhahay oo kuwa Soomaaliya magaaladeeda jooga iyo kuwa dibadaha jooga Soomaalida ilbaxa ee macnaha ka hadlaya laakiin ma ogeyn bad kuwa dhanka miyiga ku nool oo dhaqankeena soo jireenka ee suuban laga soo gaaray laftooda inay ku jiraan kuwa magaalada jooga oo kale si u dhaqmayaan oo kale kuwad laakiin adika waxba hortii idin daalin adika arki doona adika wax maqli doon dhagihiina wax ku maqli doontiin ma fahanteen dhagihiina idin hor dhici maayo okay wadamiga naga inuu tagay maanta ay shukaansi baba igu tiri baba asay war oo mana duway ugu wada taan ula fadiyay salku xanuunay naagtinaha ay afka joka waramay iyo kuno gan ka iliya moogtinta asana waxa iri amba sariir sanageen oo seexi anugu salkaan ka daaleesidoye sariir sanageen oo seexi lahaye ka warama sida uu shukaansanay waxa ila maqasheena u maleynaya wuxuu dhahay gabar baa u shukaansi tagay shukaansi marka u shukaansi tagay shukaansi baa babac ku sii kula macna sheekadii ka wada hadalkii u liibano saa u fadhiya war igu wada warkeeda yani war qanciyo ma ahan uu ka wada salkiiba ay daalo yiri markaas uu ku suuro marka suuro ay garanaysa macnaha sariirtana geey uu leeyahay iseexi camal ma fahanti mana qabo shukaansi ugu tagay marka dhaqan xumada waxa u maleynayay in dadka magaalada joogo kala dhalinyarada maanta jirta ama romantic ama waxaan reer galbeedka yani ka koobiyeen ku dhaqmayaan dhalinyarada miigina waa loo dhaadhacay way saameysay romantic miigina wuu tagay ya romantic dhaqanka miiga waxa waa dhaqan kaliya ay ku badbaadi karno dhalinyarada halkan joogto qaarkood dhaqan doorsama markii miiga la geeyo inay soo tarbiya xagga ka soo qaataan baa rab gabdhaha sida loo dhaqmo iyo xiriirka wanaagsan sida uu yahay oo hadhowna future ama mustaqbal lagu halan karo laakiin ku dhalinyarada miiga barbaarti wanaagsan ay cudurkii kuwii magaalada gaarsiiyay bal dhageyso wuxuu leeyahay ku suuro ku tirinaya qofka suuro garanayso ila fahmaysa ya
sariirtana geeyay naseexi kulaha bal ma asiga qaw mise waa gabadhiisi mise waa marwadiisi bal ayaga gabadhana waxay ugu jawaabi doontaa bal ninka ila maqli doono sheeka halkaas ka dhacday yacni videoga wax far badan ay faa'iidi doonaan dadka daawanaya rag iyo dumar bas isugu jira haddii ahaa lahaayeen kuwii hore shukaansi kasoo daala maasha allah nolol maanta dhisto caruuro dhalaya haddii ahaa lahayd kuwa maanta shukaansigii weli dhexda haya oo weli wax natiijo ah ka keenin so waxa usoo bandhigay videoga waxay tahay dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ama magaalada ha joogaan soomaaliya yacni soomaaliya mi magaalo ee leedahay magaalada soomaaliya magaalkeeda ha joogaan kuwa maxaan ku dhahdaa dalka dibadihiisa ha ku noolaadaan dhalinyarada soomaaliyeed oo yacni ay haysato wax natiijo ah macnaha shukaansi ama xiriir marka ay sameeyaan oo kale wax natiijo ah ma helaan wuxuu kusoo dhamaadaa xiriirkaas ama qofkaas ee la haasaabaya lamaanka ay leeyihiin guuldarro ayuu kusoo dhamaadaa guuldaradana waxa keeni kara waa markii dhaqankii laga tago iyo diintii qofka markuu dhaqankii iyo diintii ka tago allahna garabkaaga ayuu ka baxaya laakiin marka dhaqankii aaminsan tahay diintii aaminsan tahay ilaahaaga ku abuuray aaminsan tahay ka cabsanaysid ilaahaaga garabkaaga ayuu mar walba buuxinaya ilaahay waxaa jeceshan ku siinaya xiriirkaaga ama mustaqbalka halka aad ku wada wanaagsan ilaahay kula garab galaya laakiin hadda ilaahay adig kasoo horjeesato dhaqankaaga kasoo horjeesato diintaadi ka boodo adiga beelaha noqonaysa meecdaas soo istaagaysa mar walba guuldarro iyo natiijo xumo iskaabul le ku duqoobay maka bixiisaan ku dhah single le ahaane weliga allaha ilaa dhaqan iyo diinba midna ma haysid adiga soo taas waxaa aada ii xanuunjisa maanta waxaa is dhahay nimanka wanaagsan baadiyaha ku hareen nimanka baadiyahana sariirtana seexiyay taagan yihiin warkooda warcad waay guys ladies and gentlemen aada umaasiti thank you so much ood ku maasantihiin inta hore ila joogto way maasan yihiin videosa u support gareeya like sharta iyo si aan ku maasantihiin thank you ayaa idin leeyahay intii wacsan waxaa idin leeyahay hadda subscribe ka dhac isaga sii waa walaashiina caadi ma ahmi iyo magaalo waa idiin soo horgufaysaa ku dhahay sheekada maxaa ku dhahay yaa dhiintay maraysaa dhiin waa sheekada marka waxaas dhahay ku baadiyaha jooga lagu baxsadee bal ku baadiyaha joogan eber waaye marka waaba sariirtii ab lagu suuroobo yaab sheekada baa ku magaalka jooga waxay war qof yar romantic mid taqaan miya naga dhama waa lagu dhaam faanta romantic aqoon waa isla fahmi karnaa romantic wax laga wado oo wax filmaanta ama reer galbeedka laga soo waxaan ku laga soo minguuriye ama laga soo koobiyeeyo soo dhaqankii baadiyahina way galaafatay hadda dhame wiilkan waa barbaar ka tirsan dadka baadiyaha ku nool ama miyiga soomaalidii wanaagsaneed aan ku tirinayo waa kuwa magaalka iyo jooga iyo dibadaha way wanaagsan yihiin laakiin waxa ku jiro kuwa dhaqanka reer galbeedka minguuriyay oo romantic waxyaaba ashah darraa ku dhaqmaayo qof aynan garanayn inuu caafimaadkiisa tamaam yahay diintana kaga xaaraantinimayso macnaha xaaraan kaaga yeeshay macnaha la falgelaysaa waxaana kaaga imaanaya fayras ama cudurro fara badan qofkaas wuxuu qabo mataqaanid ma fahantay soo qofka bili-aadanka markuu aqliyan iyo maskaxiinba mirqa waxyaabaas inuu ku dhaqmaa ilama ahan laakiin dad yar oo waxaa jiro oo xoogaa dhaqan darsoom waxaa la dhaha ku dhacay dhaqankii bay ka tageen soo dadkii dhaqanka ka tagay waxaa aad iyo aada ugu xumaaday inuu dhaqan xumadaasna ee tagtay miyigii baadiyihii oo wiilku leeyahay naahedhe shukaansigan aan maanta dhan warkaad ay ugu wada tirada badanne salkaa iiga daalinaya sheekada runteeda iyo dhiigo sariirtana geeyoo taagayaha subxaan allah subxaanaka yaa cadiim maxay sariirta kuu geyne adi maa qabtid malagu kaa nikaaxay war adikaa warba adika ila dhamaysta warba adikaaye warba ma haysaan soomaaliya naaga idigu tegay babac maxaa xigi doona asxaabta maxaa dhici doona war manaa macnaha shaan war ay ugu disho ka wadaa kaasi ol boru ahay wax kale mu ahay afka jaw gacanta kugu dille ama qashara umalena guys asana waxaa idhi aye amba sariirta nagiyan hooseexi anugu salkaan ka daale siciidooye sariirta nagiyan hooseexi lahayehe higudashan oo manaahe tiri ku seexaayo maada saddex leegu kaa siiyey aniga sariirta muugaan ku seexaayo mada saddex leegu kaa siiyey lehedahe markaasa waxaa idhi adiga sacmaa taha saaxib meelmihin
sacmaatahay saaxib meenihin anugu minaan sokadaada ku seexdo sacmaatahay saaxib meenihin ay tiri 3 malyanka ay tiri iga sikowe isiraysaa lehedehe iska ka ilaalihe oo iska fasixle isku ka fasixle wuxuu dhahay saaxiibteedu waxay bitaagan waxaan dhahoor aniga soo saaxiibtay ma wallahi maxaa ka qaldan sacmaata qofiyay sirrintanage marka waxay tir 3 maal lagu kaasiyay macnaha xalaal iyo midtiid ee ka wada macnaha ma fahanti xalaal iyo midtiid oo 3 maal lagu kaasiyay taagan tahay marka dibka meesha ku jiro fahmi kartiin gabadha war saxan ay ku hadlaysaa wiilka hadda ani wiilka ila qaldan fikradiina commentiga oo ku soo cabiri kartaa videoga cid walba dhamaysto fahmi kartaa muhiimada يعني سعماتها كويا ولا ساحبتي ماهي حكا قلدن عمل واشياء كدر القلبات كجير محل يجري كلا فرد اسمه اللي يجري ايش ما كره فرد معناه صاحبك ويلك قبر صاحبه سمستا معناه سرتن ولا تجمع وحس دقن حمو واي ما دقن كينا كمد معهن دقن كسومالي دي سو جرينتا كمد معهن فهمتين دقن كسومالي دي سو جرينتا كمد معها وحس لكن ayadu way fahansiisay yani wixii ku leedahay anigu 3 leeyo migu qabtay amal oo nikax leeyo ma ka xiran oo dad sare taga ma nihin dadka sare taga wada isqabo oo xalaal isku 3 dalqadood isku qabo ma garata oo diinta isku banayso isku sharciyeysan dad sharciyeysan baa sare tagay xakaa si taagantahay niyo maxaa ka qaldan amal ay taagantahay yani gabadhaad way la saxanta aniga wiil kale ila qaldan waana si wadanaya videoga yani codkooda marka أنا وحيلا قلدن هذا وحيلا قلدن إيشك ويلك عيلا قلدن صررت نجى إيشك أيضا وعناها شو كان سي هذا البيت وده أصل لكن وحنا ربع أفارق عن يلوك إلى سكولة وربع سي لكن يدا كما أقولان سوا جبر لقنكي يحركي يدينتي يحربك تدي شو كان سي مرنا وعكبيرين يا جبر أدوان أكثرنا هانتو أنا تعجر سنة هاني جبر هسيتو ملبي جوكت هذا السلام يا كلي waxaa idin leeyahay dhalinyaro tubta toosan insha Allah halaga wado sheekadan waa idin dhameystiran faatay marka sararta nagay noo soo xubkiyo naseex sararta nagay naseex noo sii wala sheeka dhika caadi ba sheekiisa warkiisa waa cadeystaba sababtoo waa waxyaabaha ku garan kartid qofka markuu nasiijo ama mustaqbal midna ka rabin warkiisu iska caadi ku bayaanina haduu inta iska waa inuu ka tagaya fahad ya 3 maal lagu kaasiyay waa sheekada markaas waxaan yiri adiga sacmaata saaxib meenihin sacmaata saaxib meenihin anugu minaan sokadaada ku seexdo sacmaata saaxib meenihin ka waramay 3 malyanka ay tiri iga sikowe isiraysaa iga sikoysiraysa baamiya wuu siroya inuu ku ciyaaro un buu rabaa future kamalaan asaaniri hanka siraha sameygabo siyaad rabinka samay maahe ma barabtabe siraha sameygabo siyaad rabinka samay maahe laayahe مرغاية كورس كدركي باهشاني 3 مليون كان سريرتي ساعات رفتان كورة سيحاه أيوه 3 مليون كان سريرتي ساعات رفتان كورة سيحاه يعني ما فهمتين يا أماهي واشيد سنه ماندا زي سبوحة دنبان صفرايا يقول سبري ساحري دادا سبوحة دنبان صفرايا يقول سبري ساحري دادا سبوحة دنبان صفرايا لا أسيتري عنيقا مانيقا صوفا مقاد سحيا تسيل كيقا مقاد سحيا تسيل كيقا سيدي سكر مانيقا صوفا قطع أمبا سيدي سكر مانيقا صوفا مقاد سحيا تسيل كيقا مركزا محايري 3 مليون واسنود وينه ما ogtahay
horta 3 malyan waasan urweyne naagaha 30 kunba maanigaasiya 3 malyan waasan urweyne 30 kunba maanigaasiya adiri saytiriye baago 30 ka yar naagti kuu siisay tashadeera 30 ka yar naagti kuu siisay silkeeda siiyey dhahday weysay 30 ka yar naagti kuu siisay marka ujeedin sheekada halkii ay marayso macnaa 30 ka yar naagti waxeeda kugu siisay tir yacni ayadaaba qiimo lahayn ani qof qiimo lahaa ama fahanti soofna ma iyo sacna ma iyo taagantahay qofiyo wax la hubay ilay ma wafaad asigana warcirkii dhulka isugu keenay wuxuu taagan naag waligeeba lacag intaas kama bixin camale qofiyo isaga ka qawan faad iyadana waxay leedahay niyo aniga qiimo iyo lacag iga baxso markaas wax walba diyaar waayo wax walbana dhaqankii diinta soo maray taaganta asigana warkiisu waa cad yahay hadalkiisa xishood ma leh warkiisu waa iska cad yahay ku dhaa faad marka dhalinyarada maanta nasaas waayo dhalinyarada maanta jirto oo jooga magaalka Soomaaliya magaalkeeda yaa amigeeda ku noolba waa la mid wax difference u dhaxeeyay ma arkay ma muuqdaan iyo kuwa dibadda jooga dhamaantooda kuwa wanaagsan iyo kuwa xun inta waa laga helaa kuwa yacni ku qiimeynayo ixtiraamayo xishoonayo diintii dhaqankii ka boodeen sharciga way jiraan kuwa ka boodayo warkooda warcad waa waxna si cad yaa markaas inta qofka aqliga leh oo ilaahayna ka baqayso diinta iyo dhaqankeedana dhowrayso waxay leedahay forgad walaalo fiiri blog bash dheh oo ruusa ceelada faat qofka diin iyo dhaqan dhowraynin hadoo ilaahay ka baqayna wuxuu rabo ku kacaayo uu sameeynaya marka waxa wanaagsan diinteena dhaqankeena Allah ka cabsiga faat in la joogtay fiican soo mar walba ilaahay taa ku xidhan tahay waxyaabaha xun ama wixii shirta ku waaxta ilaahay ka xijaabay ku dhinac maray ma ku soo imaanay mana ku soo hujaamayaan marka caadi maanika warkiis waa dhageystay warkiis waa iska cad yahay xaalad laga sheekeyn kara ma arkay ma ahan inaba asxaabe xaalad laga sheekeyn kara ma ahan ninkaasito sida aragteenba ama aad maqasheenba yaa warya idinku daalinin marka dhalinyaro far badan loo baahan yahay inay ka digtoonaadaan oo hadda shukaansigiiba ka aaminsanba wax romantiga ama ninka hadalkiisa kale ka aaminsan laakiin sasma dhaqanka war oo mana igu wada yani war igu wada taagan yahay anigana wax cad ah u baahana anigana war igu maaweeloosa soo xasna waa qalad loo baahna okay way faanteena umaleena meesha ka hadlayo dhaqanka diinta ala ilaali ilaahina ala ga baqo okay wasla garan inta Soomaa asana waxaan idhi ya marka anugu salkaan ka daaleesidoye sariirta naagi iyo nuusi lahay shukaansigan higudooshan oo manaa tiri ku seexayo maada 3 leegu kaasi aniga sariirta muugaan ku seexayo maada 3 leegu kaasi leedahay markaas waxaan idhi adiga sacmaata saaxib meelmihin sacmaata saaxib meelmihin anugu minaan sokadaada ku seexdo sacmaata saaxib meelmihin aydi asay tiri 3 malyanka ay tiri iga sikowe isiraysaa lehedehe wiska ka ilaalihe iga sikowe isiraysaa anna sabi duur ha ii saarin ay tiri mugaad asaan irihanka siraha samey gaabo si aad rabinka samey maahe anka siraha samey gaabo si aad rabinka samey maahe laahe asay tiri waa galdargee baahashaane 3 malyankeen sariirtayda saacad rabtaan kula seexaahe 3 malyankeen sariirtayda ana ay taxal waad faanteena u maleynaya waxay ka hadlaysa gabadha iyo ninka halka warka ku wada gabadha halka warka ku wada waa ay faanteena u maleynaya yani gabadha far badan gabdhaheena waa qaali waan dheemar runtii yaa hanti far badan laga bixin waa u qalmaan geel iyo galmaan faras in laga dhibo iyo 100 halaad oo neef oo geel u qalmaan gabdhaheena Soomaaliyeed faanti kulligoodna waa geeyooyin faanti soo waxa iska jirta dad yar xoogaa laakiin iska maxal dhahay iska aqli maxaan ku dhahay waxa iska jirta dad yar iska maangaaba iska jiro oo laga faa'iideysto ku jeclahay baby iyo
biyahanka dhaxarka ilaanta ma qadeeyo ilaanta waan ku faa'iyo dadka qaar daacad ay ka tahay oo jaceylkooda yani reality-ga u dhiibanayaan ninku jecelnimo ku wax gudbaaya asina ma baro waxa gudub waxa jirkiisa inuu ku sameeyo waayo aakhiradiisa u baqaaya qofku markuu aaminsan yahay aakhir inay jirto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala alla ka cabsi uu qalbigiisa ku jiro qulubtiisa diin iyo dhaqan inaan leeyahay qofku markuu aaminsan yahay ma uu kacay waxyaabo anshax darro ama sharcigeena waxaa ka wadaa diinteena aysan raalli ka ahayd macnaha so marka waxaa loo baahan yahay mar walba dhaqankeena Soomaaliyeed ee soo jireenka in la dhowro diinteena sidoo kale ilaahay in laga baqo mar walbana wadada saxan in la qaado insha Allah aadani salaamaya haddaad igu cusubtay channelka subscribe ka isaar muuqaalka like isaar videogiisa share garay insha Allah next video jimco wanaagsan ayaa marka idin leeyahay jimco wanaagsan jimco mubaarak ayaa idin leeyahay dhamaantiina waa idin xiisi doonaa fahantays ku soo noqod wanaagsan asxaabta I love you so much aan idin dhamaantiin goodbye insha Allah next video